caasimadda waa xaggee garowe xaggee laga xukumaa kismaayo xaggee laga xukumaa marka nimankan wax ku filan oo ka badan way haystaan laakiin ma dhargayaal baa la yidhaahaa qofka hadduu ilaahay ka cabsanaynin never give up weligii ma quusanaayo magaalada garowe ee caasimadda puntland waxaa lagu soo gabagabeeyey shalay gilibkii dambe shir muddo soconaya oo u dhexeeyey xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ee sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya iyo qaar ka mid ah maamul goboleeda dalka waxaana shirkaasi qayb ka ahaa ururada bulshada rayidka waxaana dhinaca dowladda federaalka soomaaliya uu qayb galay ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed qadar iyo sidoo kale guddoonka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya sidoo kale waxaa goobjoog ah madaxweynayaashii hore ee dalka soo maray waxaana intiisa badan looga hadlay arrimahay ka mid yihiin dhammaystirka dastuurka ku-meelgaarka ee dalka iyo sidoo kale arrimaha federaalka ee la xiriiray iyo doorashooyinka qodobadii ka soo baxay shirka garowe waxaa ka hadlay shacabka muqdisho oo si weyn uga hadlay qodobadaas xilligan soomaaliya muhiimadda ay u leedahay waxba kama jiraano garowe maxaa i geeyey xaggeen joogaa caasimadda waa xaggee waxay u tageen beenbeen iyo kadaa ibley u tageen caasimadda waa xaggee garowe xaggee laga xukumaa kismaayo xaggee laga xukumaa hiiraan xaggee laga xukumaa beedhabo xaggee laga xukumaa banaadir sifada banaadir loogu qaban waayo yah waa edab darro iyo baadil waaye ma garatay waxay meesha u tageen baadilay u tageen dee waa shir la doonaayo dalkan burburku ku jira inuu ku sii socdo yacni caqli baa leedihiin ma ogtahay dadkan anigu shakhsiyan ma rabo inaan wax ka sheego laakiin raggan waa madhargayaal waxa weeye qofka bini'aadanka ah wuxuu qabriga u qaadanayaa ma jiro keligaadoobad timi keligaadoobad baxaysaa marka nimankan wax ku filan oo ka badan way haystaan laakiin ma dhargayaal baa la yidhaahaa qofka hadduu ilaahay ka cabsanaynin never give up weligii ma quusanaayo kii garowe wuxuu iska ahaa shir ay wadato hay'ad heritage la yidhaahdo oo looga hadlahaya waxaa ka jiro soomaaliya iyo geeska afrika wixii meesha tegay waxa ay sheegahayaan waa wixii ka shaqayn waaya hore uga shaqayn waaya shirkiga golaha amniga waa iga diiday ciidamada isku dhafka oo federaalka waxa hadda ay sheegahayaan wax ka jira ma jiraan been bay sheegahayaan wax ka soo baxay ma jiraan heritage inuu mashruuceedu u fulo maan u aragnaa shirka garowe baryahana magaalada waddanka soomaaliya nin qof walba oo soomaali ah oo muwaadin wuxuu aad indhaha aan ku hayna diiradda ku hayna shirka soo baxayo madaxda dowladda iyo musharaxiinta iyo wada fadhiyaan maamul goboleedyada shirka si habsamay oo u socday muddo 3 maalmood ah wixii ka soo baxay waa aad ugu taageernaa maadaama horta awalan waa in ciidamada qaran la dhiso dalka oo koow midda koowaad midda labaadna doorasho oo xalaal inay dhacdo oo doorashooyinka hore oo ka duwan sidii qodobadii u ahaan jirtay maamul goboleedyada waxaan laakiin aad u dhaliilaynaa annaga shacabka danahay galmudug maamulka Puntland iyo maamulka Jubbaland waa inay raacaan maamulada kale iyo dawladda iyo musharaxiintaba runtii shirki garowe wax badan oo isbedel fiican laga rajeynaa because markii ugu horeeyay heritage ay ku qabato Soomaaliya awal dalka dibadiisa lagu qaban jiray marka sanadkan wuxuu kaga duwanaa dad Soomaaliyeed oo kala duwan oo dadkii kala aragti duwanaa hananka doorashada dalka ayaa markii ugu horeysay dalka la isku keenay marka Soomaaliya isla hadlayay awal wadanka dibadiisa lagu qaban jiray ajaaniba ka soo qayb gali jiray marka caqabado waa jiray laakiin sanadkan waxaan rajeynaynaa inuu isbedel ballaaran oo arimaha la isku haysto oo arimaha doorashada ku saabsan in wax badan laga qabto qodobadaas waa qodob aad u muhiimsan oo shirkan wuxuu ahaa shir aqoonyahanka ku saabsan oo ahay marka waxaan dheelahay inta madaxda wadanka wasiirka wadanka hayaan dib isku fadhiistaan qodobadaas ay yidaan maadaama dadka meesha ku shiraya aqoonyahan u badnaayeen wax natiijo oo sharaf u ama wanaag u ama horumar u qaranka hadda dhisan iyo Soomaalida masaakiinta oo baabaasan kama soo baxayaan shilimaad baa lagu cunayaa lacag baa lagu cunayaa hoteelada la jiifaa magaalada Boosaaso dad baa hadda gaajo u baqtiyay maalin walba garawna waxa lagu cunayaa Primus Hunters marka waxay ummadda u hayaan ma jirto waxay u hayaan ma jirto maxamed xuseen axmed RTN muqdisho mar walba ku xirnow RTN run iyo raadraac